janaasada ugu weyn taariikhda. Habeenada ka mid ah ayaa waxaa soo kacay Sultaan Suleymaan Al-Qaanuuni riyuxan oo ku arkay hurdadiisa awgeed wuxuuna u yeeray waardiyihiisa kuwii ugu dhowaa wuxuuna ku yiri inoo diyaariye fardaha maanta waxaan bixi doonaa waqti hore si aan u soo ogaano arrimaha dadka. Suldaanka caadadiisu waxay ahayd inuu baxo subaxdii waqti hore si uu u soo kaalmeeyo dadka ugana warqabo xaaladooda. dhab ahaan way baxeen suldaankii iyo waardiyihiisa ayagoo waddada marayo ayay waddo ka mid ah waddooyinka ku marayn meyd mana jirin cid u dhoweyd meydka. suldaankii baa yidhi oo kuma meydkani? waardiyihii baa ku jawaabay waa nin zaani ah oo khamriga cabi jiray wax carruur ama ehel ahna ma lahan marka laga reebo xaaskiisa mana jirto cid aqbashay inay duugto ama aasto. suldaankii baa xanaaqay oo yidhi oo miyuusan ka mid ahayn ummadda nebiga sallallahu calayhi wasallam. suldaankii baa soo qaaday meydkii wuxuuna la soo aaday dhinaca meydka xaaskiisa. markuu u keenay meydkii ayay naagtii oyin la dhacday ayadoona ogeyn cidda hortaagan inuu yahay suldaankii. suldaankii baa la yaabay oo ku yidhi maxaad la oynaysaa? ninkaagu wuxuu ahaa zaani qamri cabe ahe. naagtii baa ku jawaabtay ninkaygu wuxuu ahaa mid ilaahay caabuda adduunkana dhar ah la uga jeestay asaga ma lahayn wax carruur ah mar walbana wuxuu rajayn jiray inuu carruur yeesho jecel uu u qabo dartiis. wuxuu ahaa mid soo iibsada khamriga wuxuuna la imaan jiray guriga wuxuuna qushubi jiray musqusha kadibna wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaah dhallinyarada muslimiinta waxaan ka khafiifiyey oon ka yareeyey qayb macaasida ka mid ah. wuxuu kaloo ahaa mid aada meelaha lagu sinaysto kadibna wuxuu lacag siin jiray dadka sinaysto maalinka lacagta heli lahaayeen oo dhan laakiin wuxuu shardi uga dhibi jiray inay guryahooda kala aadaan kadibna wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaah dhallinyarada muslimiinta waxaan ka khafiifiyey oon ka yareeyey qayb macaasida ka mid ah. naagtii baa tidhi waxaan ku dhihi jiray dadka muuqaalkaada kore ayaa u muuqdo hadhowna waad dhimanaysaa mana helaysid qof ku dhaqdo oo ku duugto. asagana wuxuu ahaa mid inti qosla igu dhahaa waxa igu tukan doono suldaan Suleymaan iyo wasiiradiisa iyo dhammaan muslimiinta. suldaankii baa oyay oo dhahay wallaahi waa aniga suldaan Suleymaan. asagana run buu sheegay wallaahi waan dhaqi doonaa waana duugi doonaa weliba anigaa duugi doono dadkoo dhanna waan soo aruurin doonaa si ay ugu tukadaan asaga. suldaankii wuxuu amray in la soo kulmiyo ciidanka iyo dhammaan muslimiinta waxaana lagu aasi doonaa ninka qabuuraha salaadiinta cusmaaniyiinta. dhab ahaan wuxuu aruuriyey dadkii oo dhan janaasadiina waxay noqotay midda ugu weyn taariikhda. qisadani waxaan ka baranaynaa qofka bani aadamka ah inaan lagu xukumin muuqaalkiisa sare ee kuu muuqda.